gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ku tilmaamay wax laga yaaqsoodo hadalla ka soo yeedhay General Morgan General Maxamed Saciid Xirsi Morgan oo sanadihii 80-aadkii Hargeysa ka ahaa taliyaha qaybta 26aad ee ciidankii Soomaaliya injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu ka hadlay oo kale eeda shalay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ay u soo jeediyeen xukuumadda Somaliland injineer Faysal Cali Waraabe waxa kale uu ka hadlay heerka uu marayo khilaafkii la sheegay inuu soo kala dhaxgalay xisbiga u cid ugu horeyn isaga oo ka hadlaya arrimaha eedaynta General Morgan iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed Puntland waxa hadaladiisi kamid ahaa magaalada Bariyaha waxay nagu socotay magaalada Saay Somaliland in codad aan la maqli jirin oo in hawaysan jirin in hadda codkooda kor u qaadeen Morgan hadda isagu waa the butcher of Hargeysa dad kii Hargeysa leeyahay waninkii Desleterka qoray maanta inuu hadlo ma waxay inuu sidii Yahuud intan soo qaban inuu karinaayad wala daba galabaheed si ikhmankii laga soo qabtay magaalada Sayid lixda ka soo qabtay Latin America ninkii waxa ninka Mareykan salaam waayay ku salaam maayay Soomaaliya waxa helada marka tamar daraanteena iyo inaan dad aan yaani godobtooda ixtiraamsan garanin ayay taas tusisaa waa taashay min ka hadlayay garowe walaha xudun ma qoran kartaa iyo soo sheeganaysa maga waa dad beentooda rumaystay ay dadkan weey laakiin waxaan u sheegnaa Morgan inay wili jiraan dad aan godobtooda aniga xisbigeena hadda aragtay programkiisa waxa ku taala in dadkeena xasuuqay genocide uu sameeyay in si toos si dadba loo tooqto aan sidii Yahuudda u sameeyna dad hantin garayda oo ugaarsada wherever they are nimankaasi idintooda u joogaan iska daay Soomaaliya wala reer Cumar Artaan u metelin iska daay inuu Soomaaliya metelay wadasnaga dadkeena way halkaasi deed moodeen inay idintooda ka qabsadaan codna way leeyihiin haday ku taliyaan leeyahay anagu halka ma joogna hal nasiya qaybtiisa Soomaaliland kaasi waa niman isu afkood ku hadla keenay inuu metelaan gabagabadii mar hoon Kabil TV weydiiyay halka uu marayo khilaafkii soo kala dhaxgalay isaga iyo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga u cid iyo halka uu marayo arintaasi xalinteedii waxa uu yiri xisbigu dhibaato iyo khilaaf ku jira wadadba waxaan abuuray xisbigu waa door shirkiisii xaw qabsanaya insha Allah taala ana watan ka duun wax weey xisbigaas uu soo bixin waxa khilaaf ma jiro aadan Cabdi Ciid lahoon Kabil TV Hargeysa